dowladda Soomaaliya ayaa muddo 30 sano kadib ku guuleysatay in xujayda Soomaalida ay fiisaha xajka ka helaan xafiiska adeega xujayda ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sharaxaad ka bixiyay xafiiska adeega xujayda oo fiisaha si toos ah xujayda Soomaalida ay ugu heli karaan oo ay hirgelisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya. mudane ra'iisul wasaare sida la socotay sanadihii hore fiisaha waxa laga doonan jiray Nairobi iyo Djibouti meelahaas laga doonan jiray ilaa 9300 oo sanadkan hadana lagu daray 2200 oo yaani fiisa dhibaatada loo mari karo waa dareemi kartay marka banaanka loo aado oo laga doonanayo safaaradaha dibadda ku yaalo. alxamdulillah maanta talaabadaas caqabadaas waa ka gudubnay oo xafiiskii wasaaradda lagu soo saari doonaa hadduu Ilaahay raado insha Allah. waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro mudane ra'iisul wasaare system database oo waxaan noo diyaarsan sanadkan oo lagu aruurin doono xogta xujayda Soomaaliyeed dhammaantood. tartan ayay u galeen shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha dadka Soomaalida ee xajinaya waxaana ku guuleystay 11 shirkadood in ay u adeegaan xujayda Soomaalida waxaana ay soo dhaweeyeen isla markaana ay sheegeen in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay kala shaqeynayaan arrimaha xajka. wakan Ali Ahmed Farax gudoomiyaha ururka Sata waa shaqo dawladii lahayd qabsatay anaguna shirkadana shaqada nadiin qabsanay xujaydi waa loo adeegay ayadoo wax dhibaato lahayn markii ugu horeysay ee shirka shay 30 sano ka hor waa taas wasaaradda dhexdeeda lagu soo saaray waxaan rabnaa annaga fursadan ka faa'iideysanayna inaan ra'iisul wasaaraha ku niraano wasaaradda diinta iyo awqaafta shaqada ay qabatay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda in lagu kalsoonaado oo lagu amaano oo lagu abaal mariyo. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda Soomaaliya ku guuleysatay in xujayda sanadkan xajinaysa ay gudaha waddanka ku helaan fiisa baasaboorradoodana loogu dhufanayo waxaana uu sheegay in horey ay ugu aadi jireen dalalka Djibouti iyo Kenya balse iminka la fududeeyay. maantana diyaaraddii ugu horeysay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee ka dhoofi doonta xujay baasaboorradooda fiisaha lagaga dhuftay magaalada Muqdisho. waxay tusaysaa in maanta aynu halkan kulligeen markhaati ka nahay in fiisihii wasaaradda xafiiskeeda lagu bixinayo xajka tacabkii loo soo mari jirayna aynu ogeyn ama ha loo diro Kenya ama ha loo diro Djibouti oo laga soo qaadayo inta baasaboorrada la sii raro oo la soo raro oo la sugayo oo hawshii ku jirta waa ognahay xogaal baan ahaan waan garanayaa maanta waxay tusaysaa dadaalka ay xukuumaddu sameynaysaa in adeegii uu soo dhawaanayo shacabka in adeegku shacabka uu soo dhawaado in wasaarad waliba awoodii iyo xilkii iyo waajibaadkii ay lahayd ay fulinayso wasaaradda diinta iyo awqaaftuna hadda aynu markhaati ka wada nahay in shaqooyinkii loo igmaday mas'uulka ay ka ahayd ay gacanta ku hayso fulinayso. عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي TV Universal مقالة مقدشو.